بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردada qiimaha badan aad iyo aad ayaan u salaamayaa insha allah waxaa inoo sii socon doona cashirkeennii markaa pediatriga ahaa maanta waxaynu qaadan doonaa physical examination in pediatrics marka examinationka loo sameeyo caruurta yaryar markaa physical examinationka horey baad usoo dhigateen isagoo general guud ahaan kan wuxuu kaga duwan yahay markaa xagga carruurta uu ka duwan yahay xagga carruurta wuxuu kaga duwan yahay markaa xeerar fara badan baa jiro ilmaha yar maanta waxa normalka u ah ayaa berrito wuxuu isu bedeli karaya xanuun noqon karaya markaa calaamadda maanta aan leenahay wax loo yaqaano waa normal ayaa berrito waxay noqon kartaa wax loo yaqaano xanuun markaa tilmaamayso sida kale markaan eegno carruurta yaryar marka loo sameynayo examinationka si xidhiidh oo isku xigta markaa stepskii loo raacayo inta badan looma raacinayo waxyaalaha carruurta inta badan cabsi gelinaya ama dhibaato ama waxyaalaha ku hadib baa loo dhiganayaa si iskaashigii ama cooperationka ilmihi yaraa uu meesha oga bixin ama uusa oga lumin marka inta badan marka insha allah cashirkan iska gudageli doonaa. In order not to frighten small children, it's the best to examine things that are uncomfortable or frightening to them last. Marka si aad ilmaha yar marka examinationka ugu sameynayso si aadan marka cabsi ama argagax aad ugu beerin ilmihi yar aad ugu beerin marka waxyaalaha examinationka qaarkood marka waa inay dib aad u dhigato marka inaad dib u dhigato ayaa muhiima marka so not to lose their cooperation sababta marka ciyaalka inta badan ay dib ugu dhiganayno waxyaalaha examinationska markaan sameynayno waxyaalaha qaar aan dib uga dhiganayno waxyaalaha ilmaha cabsida gelinaya ama baqdin gelinaya waxa weeye inuu meesha ka bixin ama uu lumin iskaashiga marka cooperationka. This means tan macnaheedu waxa weeye the last thing to do waxa ugu dambeeya ee aad sameynayso hadda u fiirso waxa ugu dambeeya aad qabataa ama aad sameynayso in a child marka ilmaha yar waa inuu noqdaa marka auscultation of the heart dhageysiga wadna auscultation of the heart marka auscultation marka dhageysiga of the heart wadna sababtoo ah marka soo qaad stethoscope-ka aad ilmihi yaraa saa loo soo dhaqaaqday waxa laga yaabaa inuu sii ooyo in la qaban waayo inuu meesha marka iyada u ka carro waayo ka baqanaya ilmihi yaraa sida badan waxaa la sameeyaa ilmaha marka adigoo kan xataa dib u dhiganayo ilmaha yar waa la soo qaada gacanta loo geliyo waa loo dhiibaa waa lagu yar ciyaarsiyaa si waxaan wax caadi ugu noqdo marka qodobka labaad waxa weeye inspection of the ears with an otoscope marka dhagaha oo kale aad ku dhageysanaysa qalabkan lagu dhageystana marka cafwan markaad eegaysid qalabkan lagu eega dhagax marka ilmihiina wax dhagta ka gelinaysa uu dareemay marka uu arkaya kuwaas oo kale waa la dib dhigtaa waxyaalaha kale oo ku muhiimka ah dhan soo qabso marka waxa adiga ilmaha yar xiriirkiina kala goynayo meeshii keenaya marka iyada iskaashiga meesha uu ka baxayo waa inaad dib dhigataa marka inspection of the truth with marka a truth stick ama oral swab waxa loo yaqaan okay markaad eegayso ama indhaynayso ilmihii yaraa marka cunahiisa kale ama hunguriga aad eegayso oo af kala qaada leedahay marka looxan yar ee aad ku qabanayso marka stiigan yar aad saa ugu qabanaysa kaasina waa inaad ilmihi yaraa afkana wax ka gelinayso oo kan uu dareemay uu arkaya kadibna uu ooyo marka kaasoo kale waa la dib dhigtaa marka waxyaalaha inta badan aynu ilmaha yar baqdin gelin karaya argagax ku abuuri karaya cabsi ku abuuri karaya la ooyi karayo kaaga carari karaya waa inaad xagga dambe u dhigataa aad marka horeba aad ku bilaabinba marka inspection stepka ugu horreeya ee la qaado waa indhayn inspectionkii haddaad marka iyada la soo boodid waxa loo yaqaana otoscope-ka iyo truth stick iyo waxyaalaha aad soo qaadatid markiiba waxa ilmihii kuguma soo noqonaya. Okay, we use our eyes waxaan isticmaalnaa markaan examination sameynayno waxaan isticmaalnaa our eyes marka indhaheena ears iyo dhegihii and hands gacmaha waxaan adeegsanaa waxa weeye marka qalabka materialka wax ka laga reeba wixii isheena inoo jirto wixii dhegteena aan ku maqalno iyo wixii gacanteena ama baabacdeena ayna markaa ku darayno aan ku aragno. In addition intaasna waxaa dheer few special items of equipment to perform the physical examinations qalab kale oo waxaa jira qalab iska yar kuwaasoo qaas ah oo ku gudubno xilliga physical examinationka aan sameynayno markaa waxaa ka mid ah sida wax loo yaqaan stethoscope kaleeto ayaynu adeegsanaysaa ilmihi yaraa
ugu dhageysano oo kaleeto ayuu ka yahay. waxa loo yaqaano waxaan isticmaalnaa oo kaleeto thermometerka si aan ilmihi xumadiisa waxyaalahaas oo kale aan kula socono. marka qalab noocaas ah ayaynu u baahanaa markaa, laakiin guud ahaan waxaan isticmaalnaa isheena waxay noo jirto, dhegteena waxaynu ku maqalno, iyo gacanteena waxaynu markaa iyada in ku dareyno. okay, pediatric examinationka rapport is important. waxa aad muhiim u ah marka communication iskaashi marka xidhiidh adiga iyo waalidka ilmaha yar inuu ka dhexeeya aad ayaa laga maarmaan u tahay markaa. talabaad, do not follow set sequence. ha u raacin sida isku xigaan markaa iyada, sida ay isugu xigaan markaa iyada usoo kala horeyn marka examinationka la sameynaya ha u raacin markaas. oo tani waxay qodobkan uu burinaya waxa loo yaqaano in ilmihii yaraa iyo adigii markaa xidhiidhkiina uu kala go-o oo marka inspectionka sameynaysa markaa truth swabkii aan soo sheegnay iyo waxa loo yaqaan auroscopkii waxyaalahaas qalabkii indhaha iyo dhegaha iyo afkii waxyaala noocaas lagu eegayay inuu ilmihi yaraa u kaargagaxa markaa iyada wadnaha lagu dhageysanayay. marka si iskugu xigaan ha u eegin marba ilmihii wixii aan baqda gelinayno markaa iyada aad muhiimna u arkaysa markaa u raac. okay, leave unpleasant parties to the end. leave unpleasant parts marka iskaga tag qeybaha ilmaha badan inta badan uu kusan ku dareemayn marka deganaanshiya ama xasiloonida, oo to the end xagga dambe u dhiga markaa. wixii ilmihi yar uu ka baqanayo dhibaato uu u arkaya xagga dambe dhiga markaa. adigoo xiriirkii aan u raacaynin waad ka boodboodaysaa. wixii aad ka boodda markaa iyada ilmihi aan waxyaalaha ka boodaysa inta badan waxaa weeye wixii ilmaha yar aan dhibaato aan u keenin uu baqdin iyo waxa aan gelinin xagga dambe u dhiga. marka waxaaga soo dhamaysato usoo noqo markaa, lagama tegayo, waad usoo noqonaysaa. some signs are different in children. xagga markaa calaamadaha qaar carruurtu way ku kala duwan yihiin. carruurta waa maxay? signiska markaa calaamadaha kaaga muuqanaya carruurta qaar way ku kala duwan yihiin. tusaale ahaan palpable liver, carruurta 4 sano ka yar oo kaleeto beerkooda markaa waa la taaban karaya, waa la dareemi karaya markaas. way ku kala duwan yihiin markaa carruurta maadaama koritaan ay ku jiraan marka hore beerkooda ugu weyn marka dambe uu soo koobmaya. brisk tendons and reflex, marka carruurta qaarkood way ku kala duwan waxa loo yaqaano sida falcelintan ay ka sameynayaan marka waxa loo yaqaano marka ilmi examinationka loo sameynayo kaleeto. ama extensor plantar response marka waxa loo yaqaano calaacasho kaleeto xagga lugta laga taabto oo kaleeto ilmihii inuu lugta inuu fidinayo oo kaleeto. insha allah kuwani waxaan ku sameyn doonaa practically ayaynu u eegi doonaa markaynu isku soo noqono insha allah. sometimes xilliyada qaar just not possible waxaa macquul ah in kaleeto ciyaalada qaar in neurological examination loo sameeyo sababtoo wixii hadda ilmihii normal warkiisa hadhowto abnormal noqon karayo. barcations in gargaraacitaan loo sameeyo, auscultation dhageysi, and calculus markaa JVP markaa calcular venous pressure oo kaleeto in aynu eegno markaa suurtagal maaha markaa. general appearance muuqaalka guud ee ilmaha markaan eegno observe while the examine your patient. ilmihii indhayn ku samee marka aad baaritaanka intaad ku guda jirto markaasi. the mental state of the patient, xaaladii caafimaad ilmihii yaraa inaad eegto oo xagga maskaxda, xaaladda caafimaad ee xagga maskaxda ilmihii yaraa mentalkiisa waa sidee inaad eegto. kow, is he acting normally, si caadi ah ilmihii yaraa caadi ma kula yahay qaab falcelintiisa marka habdhaqankiisa marka eegto caadi ma kula yahay. is he confused ilmihii yaraa miyuu wareersan yahay marka ilmihii wareersan yahay ilma isku dhex yaacsan ba. is he drowsy ilmihii yaraa marka madawaqaad buu ku jira oo kaleeto. stuperiors oo kaleeto ilmihii yaraa miyuu iska kala yaala. even comatose ilmihii yaraa mise coma ku jira. marka glasgow coma scaleka markaan cabirayno oo kaleeto ayaan kuwan sii kala saari doonaa. way isku xigaan laakiin way sii kala marka ilmihii yaraa drowsy garo, in delirium garo, stupor inuu noqo, comatose marka waxa loo yaqaanay marka stages baa jirta ilaa 6 qodob oo ay ilmaha yar markuu xagga aan eegayno inuu koomada ku jiro marka noocyada ku jiro loo kala eego insha allah. taasna waxaan ku sameyn doonaa marka wax loo yaqaano as a practically Glasgow coma scale-ka aan cabiri doonaa marka iyada. okay, the general physical state of the patient, xaaladda guud ee markaasi ilmihii ayaynu eegi doonaa qaasaan xagga xaaladda jir ahaan. general state of the health, xaaladda caafimaad oo ilmihii guud ahaan baan eegaynaa. miisaankiisa waan cabiraynaa waan eegaynaa. ilmaha yar wuxuu ku dhashaa 3 kilo iyo bar marka 3.3 to 3.5 sida caadiga marka normalki. haddii ilmihii markaa weightkiisi baan eegi doonaa miisaankiisi inagoo weliba eegayna miisaankan hadda lagugu keenay
iyo kida ahaan ilmihi yaraa marka iyada laga sugay marka ayaynu eegi doonaa miisaanka hadda lagu keeno waa imisa wax loo yaqaan expectant weight miisaanka ka rajaynaysan imisu ahaa ada ilmihi yaraa miisaanka soo miisaamayna colorka ilmihi xagga waxaan eeganaa markaa muuqaalka xagga midabkiisa baan eegi doonaa respiration xagga neefsiga signs of dehydration calaamada ma ka muuqdaan xagga fuuqbaxa edema ilmihi yaraa barar ma lehe ilmaha neonatka inta badan xoogaa barar iskaga jiri karaya xagga indhaha iyo gacmaha iyo lugaha meelahaas inta badan laga dareema dysmorphic features ilmihi yaraa waxyaala abnormality kaaga muuqdaa oo xagga morphology ama isbedelay abnormal marka iyada shape-ka xagga muuqaalka ilmihi kaaga muuqda xagga wejiga oo kaleeto ilmihi miyuu furuuran yahay ilmihi xagga sankiisa ka waran xagga wejigiisa ka waran xagga ilmihi madaxa weyn yahay miyuu madax yar yahay xagga dhegihiisii xagga indhihii maxaa loo yaqaana gacmihii waxyaalahaas oo dhan marka iyada inuu ilmihii uu kaaga muuqdo ilmihii lagu himiya qalloocan waxaas marka iyada fetal science-ka inta badan waa muhiim had iyo jeer markaa waxaa wanaagsan fetal science-ka inaa arday ahaan marka aad tihiin aad iskala qabsataan maalin walba aad fetal science-ka aad ka qaadaan fetal science waxyaala waa wax aad muhiim u ah oo haddana qofka wax weyn u qaban karaya markaa ilmihii waxaan eegaynaa temperature-ka heer kulkiisi baan eegaynaa pulse rate garaaca wadnihiisa baan eegaynaa respiratory rate neefsiga blood pressure cadaadiska dhiigga oxygentii ayaan eegnay if in distress ilmihi uu ku jira markaa cadaadis xagga naqaska marka uu ku jiro temperature at the temperature markaan ka hadlayn heer kulkii all sick children should have their temperature measured dhammaan carruurta bugta oo dhan ama xanuunsanaysa waa in dhammaan la cabiraa waxaa loo yaqaana heer kulkooda markaa temperaturekooda in la cabiraa iyadoo laga cabirayo rectally xagga markaa dabada orally xagga afka laga cabirayo and actually xagga markaa kilkilada laga cabirayo the normal temperature is about waxaa lagu qiyaasaa buuggeena hadda wuxuu noo sheegaa 37 centigrade ayaa markaa iyada laga sugayaa inuu noqdo a temperature above temperature ka sarreeya markaa 37.5 wixii ka sarreeya waxaan ku oran karnaa xumad ayaan oran karnaa the pulse garaaca maxaan ka eegnaa the radial pulse can be felt waxaan ka dareemi karnaa account in children fundamental for 15 seconds multiplied by 4 ilmaha yar inta badan waxaa laga dareemi karayaa markaa garaacaysa wadnaha xagga radialka gacanta iyadoo markaa lagu dhufanayo 15 second intaan dhegeysana 4 ayaan ku dhufanayno waxaa kaloo la dhegeysan karaya waxaa loo yaqaana 10 second iyadoo hudhow 6 lagu dhufan karaya labada xeer baa la isticmaala waan arki doonaa in the event is easier markaa ilmaha yar ee markaasi sanadka yar waxaa aada muhiim uga inaan ka tirino garaaca wadnihiisa waxaa loo yaqaana inaan stethoscope soo qaadano xagga hoose abicalka ah inay markaa ka saarno oo halkaa ka tirno in the fever marka xagga xumada the pulse rate general rise xumada markay jirto xilliga markay jirto markaa iyada xumad oo kaleeto garaaca wadnaha wuu kacaa in dehydration xagga fuuqbax oo kaleeto marka uu jirana garaaca wadnaha wuxuu noqdaa mid daciif ah oo degdegaya markaa xumada sare u kacaysa waxa loo yaqaano markaa garaaca wadnaha waxaana hoos u dhiga waxa loo yaqaano dehydrationka fuuqbaxa eventiska ciyaalka markaa sanadka ah garaaca wadnahooda waxaan ka sugaynaa 100 ilaa 160 minute ciyaalka markaa tolerka halka sano ilaa 3 sano 90 ilaa 150 by minute pre-schoolerka ciyaalka ah markaa 3 ilaa 6 waxaan ka sugaynaa 80 ilaa 140 school age-ka waxaan ka sugaynaa waxa loo yaqaano 70 ilaa 120 by minute adolescence-ga markaan leeyahay waxaan ka sugaynaa 60 ilaa 100 by minute xagga pediatric respiratory markaan sheegna eventiska carruurta sanadka waxaa weeye 30 ilaa 6 markaa by minute tolerka waxaan ka sugaynaa 1 ilaa iyo ciyaalka markaas 1 ilaa 3 sano 24 ilaa 40 pre-schoolerka waxaan ka sugaynaa waxa loo yaqaano 22 ilaa 34 by minute school age-ka waxaan ka sugaynaa waxa loo yaqaano 18 ilaa 25 by minute adolescence-ga 12 ilaa 16 by minute markaa waa xagga respiratory rate-ka garaaca markaan eegayna neefsashada waa xagga neefsiga anthropometric measureska cabiradan ciyaalka markaan eegayna miisaanka waxyaalaha la midka ah weight-ka ilmihii yaraa waan ka cabirayna waxa loo yaqaano miisaankii waan eegayna height-ka ilmihii dheerarkiisa waan cabirayna head circumference-ga baan cabirayna marka waxa loo yaqaano wareegga madaxa wareegga madaxa in yar little bit uu ka yar weyn yahay marka loo eego xagga chest-ga ama laabta wareegga madaxa waxaan ku qiyaasnaa 33 ilaa iyo waxa loo yaqaano ilaa 34 mid absent circumference ilmihii cududiisa baan cabirayna chest circumference-ga waan cabirayna marka isagana 30 ilaa 32 lagu qiyaaso wanaag doona waxaas oo dhan evaluation of various body systems qaybaha kala duwan ee jirka ayaan eegitaan ku sameyn doonaa various body systems evaluation-ka markaan ku sameynayno waa sida hore aad soo aragteen physical examination-kii hore waa indhaindhayn inspection loo sameeyo palpation wixii gacantaada ama babacdaada ku goysa
auscultation marka iyada dhageysi inay ilmihii aan ku sameyno oo anaga stethoscope adeegsanayno barcations inaga u sameynayno markaa gargaraacis markaa faraha isticmaalayno carruurta yar intaa waxaa usii dheer oo isticmaala waxa loo yaqaano hint oo loo yaqaano hair colorki waxa loo yaqaano muuqaalkii markaa xagga timaha ayaan eegaynaa midabkooda markaa texturekayga waxaan eegaynaa structureka ama qaab dhismeedka tintaan eegayn marka ama timaha ayaan eegaynaa balarka xagga midabka ayana qofkii maqaarkii ama wax loo yaqaan oo inta badan ilmihiisa oxygen aan waxaas inoo tilmaamaya haddii ilmaha uu weyn xilliyada qaar anemic buu inoo sheegi karayaa iyo discharge oo kaleeto waxaan eeganaa dheecaankii xagga inuu indhaha dheecaan ka socdo dhagaha ka socdo eye discharge oo kale xagga indhaha inuu ka socdo wax loo yaqaan dheecaan oral lesions afka inuu nabarro kaga yeelaan neck swelling oo kale barar inuu ka jiro xagga wax loo yaqaano qoorta oo kale tonsils oo kale inay jiraan xagga xoqado aan ka eegana hintiga xagga chestiga ama laabta markaan eegayno waa sida kii hore inspection baan sameynaa in la indheeyo palpation baabacada la isticmaalo barkition gargaraacis auscultation dhegeysi cardiovascularka waxaa meesha in ka saarayna waxa weeye oo keli waxa weeye inspection bayn waxaansan ku jirna xagga cardiovascular markaan eegayna barcation baa loo sameyn gargaraacis laakiin saddexda kaleeto uu leeyahay waa sida xeerka guud physical examination kasoo dhigateen abdominka markaan eegayna afarta waa loo sameeyaa genitourinary systemska markaan eegayna xagga kaadi mareenka iyo kaliyaha markaan eegayna iyo waxa loo yaqaano iyo genitalka marka iyada reproductive organism markaan eegayna iyagana waxaa la adeegsadaa iyagana baaritaankan ku darna oo ah costovertebral angle ama wax loo yaqaano CVA tenderness danqasho waa feedha 12aad iyo xagga laf dhabarta halka yare iska galaan marka iyada bartaas qofka wuxuu ka dareemaa danqasho CVA tenderness markaan sheegayna kaasi oon ugu talagalnay ama aynu kala jeedno waxa loo yaqaano waxyaalaha loo yaqaano waxayna had iyo jeer aan kala jeedna waxa loo yaqaano waxa weeye ilmihii kaliya xanuun inuu leeyahay kaleeto inuu kelida dhagax kaga jiro kale infection wax noocaas pyelonephritis suprapubic tenderness baa jirto danqasho waxa loo yaqaano xagga tilmaamaysa marka iyada xagga waxa loo yaqaan marka iyada tilmaamaysa xagga gumaarka xagga sare iyo inspection of external genitalia inaan eegno ilmaha kaleeto wax loo yaqaan inanka oo kale xiniyo inuu soo dhacayo kaleeto dadka qaar baa congenital u jira oo inta badan uu soo bixin musculoskeletal systemka waxa ugu dambeeya waxaan eegi doonaa muruqyada iyo la qalfafta marka inay joint swelling kale inay marka kala goysada barar ku jira ama danqasho deformity wax abnormality inuu jira ama qalooc ama wax loo yaqaan lafta oo kale inay bararsanta marka bone swelling oo kale ama tenderness lafta inay bararsanta ama danqasho ay jirto iyo xagga muruqyada dhamaan integumentary waxaan eegnaa xagga skinki midabkiisii inuu midabkiisa waa sidee inuu wax finan ama nabara inay ku yaalaan wax la mid baan ka eegaynaa central nervous system waxaan ka eegnaa level of consciousness heerka miyir qabka qofka reflexka falcelinta sida motorka iyo sensoriga marka muruqyada iyo nervouska marka iyo meningeal signs calaamado ah qoorgooya meningitis inuu leeyahay neck stiffnesska qoorta marka laba loo qaado Brody signs iyo clinical signs baa loo yaqaanaa eegana insha Allah waynu eegi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh lecturekeena physical examinationka intaas oo maanta naga dhanyahay wixii ka dambeeyay waxaan geli doonaa wax loo yaqaan xanuunadeena waxay caadiga ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wixii su'aalaad qabtaan way soo weydiin kartaan insha Allah taala